magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa ku sii qulqulaya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa horaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ugu yeertay dalka Turkiga magaalada Ankara halkaas oo la rabo inay ku wada hadlaan labada dowladood. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo wafuud kale uu hogaaminayo ayaa goorsi horeysay halkaas gaartay. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya iyo wafdi uu horkacaya ayaa lagu wadaa saacadaha soo aadan inay gaaraan magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga. wadahadalladan ayaa waxay dhabarjab xoogan ku noqonaysaa maamulka iskiisa madaxbannaanida ugu dhawaaqay ee Somaliland. walow wararku qaar ay sheegayaan in isafgaradka uu soo idlaaday isla markaana dhawaan lagu howlgali doono heshiisyadii maamulka Somaliland iyo Itoobiya ay wada yeesheen. labadan wafuud ee isugu tagaya dalka Turkiga magaalada Ankara ayaana la ogay waxa ay ka wada hadli doonaan. walow dowladda Turkiga ee Soomaaliya aad u taageerto ay rabto in Soomaaliya iyo Itoobiya ay heshiis noqdaan maadaama gobolka ay saameyn iyo galaangal xooggan ku leedahay dowladda Itoobiya. xaaladda Soomaaliya ayaa markii u dambeysay waxa soo ifbaxay in madaxda Soomaaliyeed ay ku cataabayeen inay leeyihiin Itoobiya waanu ogolnahay badaheena balse waxaan diidanahay qaabka ay u soo martay. hadalkaasi ayaa waxa uu dhibaato xooggan iyo dhabarjab ku noqon doona maamulka Somaliland ee madaxweynaha uu yahay Muuse Biixi Cabdi. si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa dhawaalaahba waxaa beesha caalamku ay sheegaysay inay soo reynayso ayadoo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba horumar ballaaran laga gaaray. dowladda Turkiga ayaa saaxiib dhowla dowladda Soomaaliya ee federaaliga. maamulka Puntland ayaa dhankiisa asagana waxa la sheegayaa wararkoos aan helayno inuu qayb ka noqon doono wadahadalkaas. haddii wadahadalkaasi ay ka qayb galina xaalku meesha ka sii adkaan doono. maxaa xilligan ku soo beegay in xukuumadda Muqdisho ay xilligani waawaan wadahadal ka ogolaato dowladda Itoobiya mise dowladda Turkiga ayaa gadaal ka riixayso doonaysa in labadan dowladood ay heshiiyaan.